cudurka sida daran ugu sii faafaya caalamka ee coronavirus ayaa la xaqiijiyay inuu soo gaaray Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaana cudurkan lagu arkay qof ka yimid dalka dibadiisa oo dhawaan la karantiilay isla markaana lagu karantiilay goob gaar ah oo ku taalo garoonka aadan cad ee magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur oo warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay isla markaana shaaca ka qaaday in qofkii ugu horeeyay ee qaba caabuqa coronavirus lagu hayo magaalada Muqdisho wasiirka caafimaadka ayaa sheegtay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka yimid dalka dibadiisa ay maalmahan ku hayeen goob karantiilan laguna sameeyay baaritaan ay maanta xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya sida ay sheegtay wasiir Fawziya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waxaan rabnaa in dadweynaha Soomaaliyeed umada aan u sheegno in maanta ay tahay 16 bisha Maars 2020 aan xaqiijinay xaaladii ama keiskii ugu horeeyay oo coronavirus ah sidaad la socotaan waxaa jira muwaadiniin Soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu hayay airportka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuqo aad iyo aad ugu koreeyay waxay ahayd taxadar meel loo asteeyaa la geeyay waxaana laga qaaday wax walbana waa la baarayay waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaado caabuqa infectionka coronavirus ee COVID-19 loo yaqaano saakay ayaa resultiga jawaabtii loo keenay hal qof ayaa cudurkii qaba dhanka kale kulan degdeg ah oo maanta isugu yimaadeen magaalada Muqdisho golaha wasiirada Soomaaliya ayaa lagu go'aamiyay in si ku meel gaar ah loo joojiyo duulimaadyada caalamiga ah ee ka imaanaya dalka dibadiisa iyo sidoo kale kuwa ka baxaya wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa sheegay in la joojiyay duulimaadyada caalamiga ah ee yimaado Soomaaliya laga bilaabo 18 bishan ilaa iyo muddo ku siman 15 maalin waxa uu sheegay wasiir Omar in dawladda mudnaan gaar ah siin doonto diyaaradaha wada howlaha gargaarka bani'aadanimada waxa uu sheegay in go'aanka duulimaadyada caalamiga ah looga joojinayo ay tahay in uu sii faafo cudurkani. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaahay idinkiisa Allah naga najiyo cudurkan maanta oo taariikhdu tahay 16 bisha 3 2020 waxaa shir degdeg ah isugu ka yeeray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre shirkaas oo uu inoo shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa ka soo baxay qodobada soo socdo dowladda federaalka Soomaaliya si ay uga hortagto una xakamaysto cudurkan faafa ee coronavirus ayaa waxay joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee waddanka yimaada ama ka baxa xamuul iyo rakaab intaba ka bilaabato dhammaadka 18 bisha March 2020 muddo 15 cisho ah. Soomaaliya oo dal ka soo kabanaya burbur iyo faqri ayaa waxa ay aqoonyahanada Soomaaliyeed ku talinayaan in aysan haatan jirin cuntooyin Soomaaliya u kaydsan dhammaan sidoo kalena quutul daruuriga ay cunaan dadku ay ku tiirsan yihiin raashinka laga keeno waddanka dibadiisa iyada oo ay dalka imaadaan diyaaradaha iyo sidoo kale maraakiibta ku soo xirta dekedaha dalka sidoo kalena cudurkani COVID-19 laga qaadi karo arrimahaasi